daawadayaal waa war degdeg ah oo Djibouti laga soo gaaray. Djibouti waxa ka dhacay maanta xasuuq ama slow genocide oo ku kacday xukuumadda Ismaaciil Amar Geelle. rag badan oo siyaasiyiin oo caan ayaa la laayay, dad rayid ayaa la laayay, dhaawac oo tirabeel ayaa leeyahay oo boqol ayuu gaaray, dhimashada dhowr 10 ay maraysaa ayaa leeyahay. saas darteed qadka telefoonka waxaan kula xiriiray gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Djibouti ee loo yaqaano bad waxaan la hadlayaa حسن الشير حريت waxaan weydiiyay xasan daa maqlaysa maanta Djibouti waxa dhaceen. السلام عليكم ومبارك يا داير على السوق وهذا خصوص وتمام جيبوتي مانتا وصمع صوت هذا ورئيس قال الشيء وحوينا جيبوتي مانتا واحد تبع حسوق قالوا إن برضو صوت ديارنا ينك جيبوتي كسرية كلمة تلسك إسماعيل ونقول كطلق جلس ونقول براري ونقول إنك تشتيني أصلا waxaa cadeynaysa wuxuu sameeyay waxyaabo sharciga ka baxsan oo xukun degdeg ah la yiraahdo wadanka ku soo rogay iyadoo dhibaato ka jira xukun degdeg ah sharciga maxay ahayd la yiraahdo sharciga maxay ahayd xuquuqul insaanka ee adduunka u yaallay qodobkiisa afraad wuxuu dhigayaa xukunka degdeg waxa la hirgelin karaa marka dhibaato ka dhacdo wadanka la mid ah tii ka dhacday Paris oo kale baa la hirgelin karaa wadan ay waxba ka dhicin oo iska nabada marshal lama hirgelin karo xukun degdeg laguma qaadi karo oo lama hirgelin karo sharcigaasi marka sharcigaas markuu hirgelinay wuxuu u talagalay waxa uu iska watay waxayna ahayd maxayna inuu xasuuq geysto dadna ugu jeeday horena waa u sheegnay qoraal baa lagu soo saaray bishii toddobaad dhimashada intee maraysaa xasan dhimashadu intee maraysaa hadda dhimashadu 9 baan imika haynaa wayna ka badan kartaa sababtoo ah meesha dadku ay badanka ku dhinteen ciidan military waxa lagu wareejiyay taangiyada ciidanka militariga lagu wareejiyay meesha waxa la yiraahdaa bulqoba la yiraahdaa meeshaasi waa meel banaan oo gadaha waxay garab tahay waxayna ku taalaa koonfuraha magaalada xaafadda Balbala la yiraahdo koonfuraha ku taalaa marka intii imika dadku markii hore subaxdii ay jirin karaan ilaa iyo 2 duhurnimo markay saacada Djibouti tahay ama saacada Muqdisho ahay waxay dadku tirin karaan ilaa 9 laakiin ilaa galabtii way socotay rasaasta iyo madaafiyada dadka la dhacay way socdeen taangiyaan baa loo isticmaalay dadka dhaawac intuu maraya dhaawaca intuu maraya iminka waxaan ku jiraa internetka waxaan arkayaa wasiirkii hore ee diinta oo qaabta Djibouti Hamid oo dhiigu ka daayo oo runtii dhaawac aad u liita dhowr meel bay kaga dhacday عبد الرحمن تيجي قاعدنا عبد الرحمن تيجي سوي قاعدين يو وزيركي هو وقتك معايا احمد يوسف مرحا يو اس حسبي بدانا قرنك دلوقتي قرنك يو اس ان محوها waxa kale oo lagu dilay ninkii عبد الرحمن تيجي في مرحا ka areen waxa kale oo halka lagu weeraro oo wax lagu dhigtay Saciid Yare oo xildhibaan waa maxay xildhibaan mucaarad oo baarlamaanka ku jira rag badan halka lagu laayay qaar lagu dhaawacay qaar wuxuu la gaajiyay oo qaarna xabad lagu dhistay dadkaas waxa lagu weeraray kul uu leeyahay maxay nin mucaaradka kamida oo maxay xaakina oo maxay la yiraahdo maxay amarnaydan la yiraahdo yaa qalkiisa lagu weeraray arrintan kale maanta dhacday ee saaka subaxdii 4 subaxnimo markay saacadii Djibouti bilaabtay waa kala duwan labada arrimood laakiin dawladda dacwada si ay u macnayso oo macna ugu yeesho arrinteedii xasuuqii Ismaaciil lagu kacay ee qabaa'il ku salaysnaa qabyaalada ku salaysnaa si uu meel marin karo adduunku wuxuu
وجهك لو جاري كرم أيو سح قال لو راح يمر كرتوين تفاكر بعد واحد جرامة أفضل سواح لما واحد ليش ليش الله يرى بقولكم واحد ليش في الوقت قبل زيارة غير كلا يرى اسمه سأم ونحب الله يقام أو كمل الله يترك كذا سوق كذي هاي ويان وأنا رأيت قبل الإنسان ما كانوا الله يرى waxay ku dhiganayeen ziyaaro meesha ku dhiganayeen oo ay ziyaaradoodii ku qabsanayeen ziyaarada ay ku dhiganayeen aabahood ay u qabanayeen oo ay ka soo tafiirmeen bishan toddobaadadii horeysay waxaa la qabtay laba ziyaaro ku horeeya la qabtay waxaa qabtay reerka la yidhaahdo mamaasan ziyaaradooda bay qabteen waxaana loo xilsaaray wasiirka cali yaquub la yidhaahdo mamaasan carabi reerkaagaba loo xilsaaray inuu arrintaa qabto madaxweyne wuxuu xilsaaray uu lacagta ku bixiyey wuxuu xilsaaray inuu gabadhiisa u dhisay ee la yidhaahdo jaamac xogkii la yidhaahdo jaamacadkeeda dadka reer jabuuti yaqaaneen wasiirka tacliinta iyo u xilsaaray oo reerka isna si cali muuse la yidhaahdo reer la dhashay reerka yoonis muuse iyo u xilsaaray inay maxay ahayd uu qabanqaabiyo ziyaaradiisa cali muuse oo lacag u geliyey uuna qabanqaabiyeen labadaaba booliisku way ilaayeen wayna kala qayb galeen taageerana way siiyeen tani yoonis muuse markii la qabanayay ismaaciil cumar lacag buu soo diray uu yidhi waar lacagtaa baan kaga qayb galayaa maxaa yeelay iimad buxeeye waa nin iimad doonaa ziyaara weeyaan baa layidhi meeshan bolitik shaqo kuma nina naga jooji baa layidhaha arrimahaas ismaaciil cumarow sida kale marka dambe haddaan loo yeelin isnoo yeelo arrintani waa ziyaara naga jooji marka wuxuu arkay inay reerkani ay diidan yihiin amarkiisa oo ay hoos imanaynin ay ka hoos baxeen u arkay waa ogtahay inuu xurdo ku wada hayo dadka reer jabuuti uu beelbeel xurdo u hayo uu nin rag u samaystay marka arrintan yoonis muuse wuxuu arkay inay ka hoos baxeen una gacanta qaban karaynin marka iminka arrintani bareer buu ugu dhaqaaqay inuu dadka laayo askar buu u diro wuxuu yihi meesha baabi'iya askartii loo diray waxay dhahan dadkii joojiya ziyaaradana waxaa la qaban lahaa 23 bisha ilaa 25 bisha 3 cisha lagu talagalay inaa la qabto ziyaarada ay socoto marka maanta ilaa beritoole meeshii lagu qabanayay waa taanguyadii taandayadii iyo maxilada iyo qalabkii la diyaarinayay askartu afartii subaxnimay meesha tegeen iyo dadkii baa layidhi shaqadii joojiya shaqada way dadkii way diideen 7 subaxnimaa la soo gaaray 7 subaxnimo markay dadkii soo wada tooseen meeshii tegeen bayaan la joojinayno ismaaciil cumar 7 subaxnimo markuu wadada ka soo kacay baashi miyaa la joojinaysa lama jooji waa la joojin kari maayahay baa layidhi rasaasta ku bilaabay buu yidhi rasaastii baa dadkii lagu bilaabay si badan dadka rasaasta loola dhacay dadkii way u jawaabeen dilayskii waxba way ka qaban kari waayeen dadkii oo daas baa qaaday dilayskii waxaa la keenay meeshii markii rag wejiga ka duuban oo lagu tilmaamay dad maleesha oona ahayn ciidanka jabuuti oo la garanay meelay ka yimaadeen baa meeshii la keenay dadkii rasaas caadiga iyo waxay la dhaceen maxaa yeelay hululus bay dadkii la dhaceen waxaad moodaysay maanta muqdisho inaad joogtidba markaad aragtay waqtiyaasay muqdisho ay maanta inaad joogtaad moodaysay marka waxay la dhaceen manaafiic bay la dhaceen dadkii dadka waxaa dhintay 19 imka meesha laga tiriyey intii dambe ee ku biirtay weli lama garanayo meeshii taangiyaad baa lagu wareejay inkasta iminka dhulku uu nabad yahay jabuutiyo xaaladu kala degtay haddana waxaa socota culays buuq xoog laa ka dhex socda xaafadaha waxaana laga cabsoonayaa baashu inay u janjeersanto u dhaqaaqdo dhan qayaaladeed sababtoo ah waxa weeyaan waa reer waxa lagu duulay waa reerna waxa ku duulay dowladnimo jirta meesha wayna wax iska cado oo waxaan u joognaa wixii muqdisho ka socon jiray ee la oran jiray muxuu ahaa hogaamiye kooxeedyo ayaa haysta iyo baashu maanta u eeg tahay ismaaciil cumar baa ka mas-uula waxaa ka mas-uula arrinta waayahay haddaad maqlayso xasan xareed arrintu waxaa leeyahay waa dagaal u dhaxeeya odax gub iyo mamaasan fikirka noocaasa ma kaga muuqdaa meesha oo ma qabtaa adigu waxa weeyaan siduu dhigayo maaragtay xeerka ciisaha markuu 4 nin oo isku reer kugu soo duulaan lama yidhahdo hebel bay kusoo duuleen reerkaa bay kusoo duulay baa la yidhahdaa waaya waxa weeyaan maanta 4 ragga dowladda maamule ee duulimaadka ka dambeeyey waa 5 nin oo isku beela weeyaan oo uga talagalay bishii 7 ku shiraan dalka madaxtooyada haramuus ku yaalla ismaaciil cumar uga talagalay inay reerka yoonis muuse ku duulaan waxayna rabaan inay iska hor keenaan mamaasan iyo odax gub inay iska hor keenaan bay doonayaan laba rag beelood oo wada dhashay annagu waxaan leenahay maanta waa laga badbaadiyay taa waxay noqon doonto beri caawa iyo saan dambe garan mayno laakiin maanta arrintii dhacday waa laga badbaadiyay inay labada beelood isku dhacaan waana rajaynaynaa inay saa kusii socoto dadku ku hortagaan uun maamulka ismaaciil cumar iyo wixii la shaqeeyo oo dariiqa marina sidii loo mariyey
mariya rajaynayna laakiin waxaan laga qabanayna inay ka badbaadtay laakiin dadka ma hubaysna dadka Djibouti ma hubaysan yihiin mise waa shacab aan hubaysnayn shacabku ay jirtaan magac iyo uray jirtaan wax rasaas ay jirtaan ma jiro waxaan maqlayay wasiirka arrimaha gudaha oo Ismaaciil Umar soo dhiibay meesha ka akhriyo rasaasay soo qaaday oo ugu jirtay taa la isku hubaayo oo sanday meesha yimaadaan laga maxay sagaal daawo booliska laga helayay kuma loo qaadimada booliska raggaasi ma hubaysnayn waxay qaateen markii rasaas lagu hayo dhagaxday gurtaan ku dagaalameen Djibouti dadku ku mahaystaan waxa ku haato hubaystaa waa askarta iyo maleeshu Ismaaciil Umar sanaysta wadanka iska dhex joogto isku yahay iyo ayuuba hubaysta wadanka Djibouti shaqo ku mahaystaan Djibouti marka maxaa la sameyn karaa kulanta waxa la sameyn karaa waa kacdo dadka ku kacaan kacdoonka asagana wuu dhamaynaya asaga miyaa nin xukunka raba inuu ku soo laabto una xariisanaya shacabka uu dhamaynaya maxaa la sameyn karaa waxa weeyaan marka horta wixii marka guul maxay halkan horta waa loo dhintaa halkan waa lagu dhintaa waa loo dhintaa halkan ugu daada ma jiro caalamkii boobba tarag oo dhintay tanna waa loo dhiman oo rag waa u dhimanayaan laakiinse waxaan anigu u baahnay maalin dadka shaqada Djibouti ku dhaqaaqaan hadalka Haramuus Ismaaciil Umar inuu joogay maanta ma diyaarad buu qaaday ku dul wareegayay markii rasaasta ka soo aahayay iyo maleeshiyu sameeyay dadka rasaasta ku ahaysay diyaarad buu qaaday ku toobadka ku dul wareegayay wadanka uu eegay xaalad saydaade xumaato carab buu ahaa wadanka haday arintu xumayna iska day ku arkaysiin tirtirti buu ahaa wuxuu arkay baashi inuu dadka dagaal ugu talagalay maahay dad waxay ahaayeen ducaa samaysanayay allabay samaysanayay oo maxay mawlid samaysanayay ahaayeen meesha ku weeray markaas waxa weeyaan waa sheekada qomeed boqol waxa la ilaalaa waa sheekada qomeed wuxuu maanta sameeyay Ismaaciil Umar laakiin wax ka sameeyay jawaabteeda waqtigeedii ilaalay waana loo jawaabi karaa haddii uu joojin waayo qorigaan qori waa la yaqaanaa sidoo waana loo jawaabi waxaad inta maamtaa beeshaan ila mamaasanka madaxweyne Ismaaciil Umar geela ka dhashay ay wax ka degaan adaan waxa degaan Soomaaliya maxaya maxay ahayd geerita bulaxaar fadlan xud Soomaaliya u bariyo degaan baranka inkastoo ay soo dhulka lahayn isku dhex dhigo qaybada way jiraan maxay Djibouti laakiin inta u badan waxay degaan Soomaaliya si waliba kilinka Ismaaciil Umar soo ka dhashay waa dad Soomaaliya degaan oo Djibouti shaqo ku leh odaxku kale halkee degaan walaal kuna waxay degaan qaybito iyo dadka oo ku kala soo dhaweeyay degaan Soomaaliya way degaan aad u degaan sida Soomaaliya ko kale Djibouti way degaan oo waxa degaan kidna badan degaan maxay Ethiopia way degaan oo kidna badan degaan waayahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Djibouti ee loo yaqaan Bad Master Hassan Sheer Xareed oo qadka telefoonka ugu waramayay TV waaga cusub